barnaamijka dabagalka degmooyinka waxaan isbuucan ku dul istaagi doonaa degmada Shibis oo ka mid ah degmooyinka qadiimiga ah ee gobolka Banaadir. degmada Shibis waxaa degmo ahaan loo aqoonsaday sanadkii 1973 waxay qayb ahaan ku taallaa afarta qaybood ee gobolka Banaadir. qaybtiisa bari waxa ay xuduud la leedahay afar degmo oo kala ah Cabdulcasiis, Yaaqshid, Kaaraan iyo Boondheere. degmada waxay ka kooban tahay afar waaxood oo kala ah Saqaawudiin, Xalane, Cali Sowdheere iyo Axmed Gurey. goobaha la garan og yahay ee degmada waxaa ka mid ah xarunta maxfalka, barxadda John Carla, xarunta nabad sugidda ee Habar Khadiija, xarunta aqalka sare Bar Fiyaad oo hadda qaarkiin hotel Doorbin u yaqaanaan, masaajidka Yaashayga, isgoyska afarta darjiin, tabeelaha jacaylka, isgoyska Manabolyo, sarta Beexaani, isgoyska Sanco, safaaradii Sacuudiga, jaaliyadda Yemen, iskuulka Gaashaanle, ceelka Axmed Qandac, Shaneemo Xadarmuud iyo isgoyska Jubba. degmada Shibis waxa ay leedahay hal wado oo laami ah oo kaliya marka laga reebo wadooyinka ay wadaagaan degmooyinka kale, waana wadada Nasiib Bundo. degmada waxay u dhaxaysaa jidka ka baxo isgoyska Jubba ee taga isgoyska afarta darjiin, midka ka baxo afarta darjiin ee taga isgoyska Sanca, midka Sanca ka baxo ee taga Hotel Global iyo jidka Hotel Global hormara ee taga isgoyska Jubba. dadka ku nool degmada waxay nolol maalmoodkooda ku tiirsan yahay ganacsiga maalinlaha ah iyo xoogsiga. waxaa degan dad isku dhaf ah, waana degmo qadiimi ah oo ku caanbaxday sharaxa. degmada waxay leedahay hal MCH oo kaliya uu shaqeeya sida dabagalka uu ogaaday, mana ahan mid ku filan in uu daboolo baahiyaha caafimaad ee afarta waaxood ee degmada Shibis ay ka kooban tahay. xaruntii qaaxada ee degmada oo lagu dayactiray lacag shacabka degmada laga qaaday markii dhismaha lagu dhameeyay, waxaa degay nabad sugidda oo waxa ay noqotay xarun ciidan. iskuuladii Saqaawudiin, Jamaaludiin oo dadka qaarkood u garan og yihiin Salmaan Faris iyo iskuulka Shibis oo hadda loo yaqaan Nuur Shimbirow, intaba waxaa degan nabad sugidda. waxay markoodii hore ahaayeen iskuulo wax lagu barto oo ay ka soo aflaxeen dad badan oo Soomaaliyeed, haddana ay ahayd in dib loo howlgeliyo. kaydkii taraqa iyo sigaarka waxaa hadda degan iskuulka Muqdisho oo ah mid si gaar ah loo leeyahay, waxaana ardayda dhigata laga qaadaa lacag bil walba ah. iskuulka Gaashaanle waxaa gacanta ku haya dowladda, waxaa wax ku barto ardayda, halka jaaliyadda Yemen ay dib ugu laabatay gacanta dadkii lahaa, kuwaas oo kor ka ilaashan jiray intii uu waddanka ku jiray dagaalada sokeeye. degmada Shibis waa degmada kaliya ee aan lahayn gudoomiye degmo kadib markii xilka laga qaaday gudoomiyihii degmadaas Cabdiraxmaan Sayd Cali oo lagu eedeeyay musuqmaasuq ku aadan in uu lacago aysan dowladda hoose ogeyn ka qaadan jiray dadka degmada. markuu arkay sifaha sharci darrada ah ee uu dadka deegaanka lacagaha ugu qaadayo, markuu arkay qirashada gudoomiyaha degmada Shibis qaadista lacag aan sharciga waafaqsaneen, kana hor qirtay guddoonka sare ee maamulka gobolka Banaadir, asigoo la tashi la sameeyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ku xigeenadiisa, wuxuu soo saaray xeerkan qodobkiisa koowaad ee u qoran tahay laga bilaabo maalinta xeerkan la saxiixo waxaa xilka gudoomiyaha degmada Shibis laga qaaday mudane Cabdiraxmaan Sayd Cali Xuseen, isla markaana loo diray waaxda dambi baarista ee CID-da. wiilkan hore uga soo noqday gudoomiyaha degmada Dharkeynley ayaa loo taxaabay xabsi si loo baaro eedaynta loo soo jeediyay, waxaana kiiskiisa la wareegay hay'adda dambi baarista ee CID-da oo uu ku xirnaa. warar lagu kalsoonaan karo ayaa dabagalka u xaqiijiyay in Cabdiraxmaan uusan xirnayn hadda oo damiin lagu sii daayay, waxaana damintay xildhibaanka ku matala federaalka ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda Cabdullaahi Cumar Abshirow. kusimaha gudoomiyaha degmada ahna gudoomiye ku-xigeenka amniga waa Maxamed Xasan Maxamuud, waxaa hore u soo noqday gudoomiyaha isboortiska degmada Shibis, u qaabilsanaha DRC ee degmadan iyo xogayaha degmada Kaaraan. wuxuu degan yahay degmada Shibis. wiilkan isku qanciya in uu yahay gudoomiyaha rasmiga ee degmada, dadka qaarna ku xantaan in degmada Shibis dhaxal awowgiis u arko, ayaa waxaa keensaday oo muddo 10 sano ku dhow ku hayo agaasimaha xiriirka degmooyinka gobolka Banaadir Mukhtaar Axmed Dhagacade. wuxuu degmada ka degan yahay guri uu xoog kaga haysto dadka cadcadka ah ee qaybta ka ah dadka degan degmada. dabagalka oo soo baaray xogta gurigan wuxuu ogaaday in dadkii lahaa oo ka maqnaa markii uu degayay uu hadda ka diiday inuu ka guuro markii ay dalka ku soo laabteen. 40 qof oo wacyigelinta caabuqa COVID-19 ka sameynaya degmada Shibis oo qofkiiba $105 loogu soo dhiibay ayuu siiyay qofkiiba $35
wuxuu qofkiiba ka reebtay $70 taas oo ka dhigan inuu afka u dhigtay $2,800 dabagalka oo xarunta degmada u tagay qiimeynta iyo sida ay degmada u shaqeyso ayaa la kulmay dadkan oo cabasho ah shaqada bilaabanaysa waxaana waxmaan leenahay dhahnay bini'aadamku waa iska bini'aadan yihiin guri waxaana la dhahay xiliyada kale waxaan ku shaqeyn jirnaa anaga muxuu ahaay waxaan ku shaqeyn jirnaa volunteer ku shaqeeyeen beel qof wax siiyay male waxaana la dhahay degmooyinka kale waxay qabaan ay qabtiin waxaana lamid degmooyinka kale waxay qabaan ay qabtiin degmooyinka kale waxay qabaan anaga waa weynay boondeer $100 lagu qaatay markay shaqada dhamaato waa shaqeysan 22 maalmood waxaa lagu qaatay muxuu ahaay $100 ay qaatay boondeer kaaraan way qaateen shangaan way qaateen $105 annaga xuquuqdayni waa weynay cabashaan nahay gudoomiyaha cabashadeena waxay fariinteena waxaan u diraynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir inuu wax nooga qabto dhibaatadan haysato oo naga soo gaaro maalin walba waxa la cadaalad waay musuq lama ogolaadin musuq inaan la ogoleen waa inaan aragnaa wixii naga maqan la siiyo waxa waa inaga dad masaakiinana oo waxa iskaga shaqeeyaan muxuu ahaay sheeg ay volunteer mar walba ku shaqeeyaan laakiin mar walba anagoo dadkii oo muxuu ahaayay oo shaqada markii la tabeel shaqada ugu daran tabeela qabto inkasta dadku wax isla wada qabtaan dadkan kale waxay joogaan mukayfiyo ku jiraan mukayfidooda ku jiraan baabuurtooda ku socdaan mushaaraad badan ay qaateen ma deeqdo wixii soo dhacay ka qaataan ya haddana muxuu ahaay shaakistiirista filfiliq yarka ah ay loo guur waayeen markaasay leeqeen ma fahmay gudoomiyo cabashaan nahay cabashadeen waxaa rabaa inay wax nooga qabtidaan soo shaqeynayna استقعدنا شنبري شقيني لعبت أسوينا من الصين $65 عامك إلى مدة لو حاجة عطان $5 والله قاعدة في مال الجو كمان حتى عسينا أنا حقنا ما صار العيال بس إيش لو نقطعوه هنا عليه ما طلع لنا ما كنت نشتغل معينا مساكين أو حنا وحاول وباهم وكنا كل شقاية هالكمرة وحلالنا إنه خلقوا دومي عمر فيلم أنا سيدي بدك شيء مروى البحر وقدينا وعمر كهرب وسوجع ونوك وهرب سنة وأبي دعوة سوجع أنا هي الشباب الدعوة إيه واحد ولا قبل لا تفافر البلاد لا ما شيء كم تسمع كم تبلاد حتى يقول البلاد كده سنتا وعوالة معانا قد دبي معانا قد دبي معانا سويسة فير معه صوص كودي هذا دقوقين كجارك لا لعبت على معه كودي هذا أساسا معه ولا لا أسمعنا wuxuu xilka qaadis aan sharci ahayn ku sameeyay gudoomiyihii dhalinyarada degmada kadib markii ay isku qabsadeen lacagtan faraha badan ee uu dadka ka reebtay waxa xogo lagu kalsoonaan karo ku helnay in gudoomiyihii dhalinyarada degmada iyo hal gudoomiye waaxeed ay ka soo horjeesteen falkan uu dadka lacagahooda ku kala reebtay sidaasna uu xilka uga qaaday xilli uu joogo gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makaraan oo ay shaqadiisa ahayd gudoomiye Makaraan oo ku soo baraarugay xilka qaadistan uu samarku u hayn oo soo wacay kusimaha gudoomiyaha degmada ayaa lagu qanciyay in uu qaybtiisa ka qaato lacagtan la dhacay ee $2,800 ah sidaasna uu ku soo magacaabo gudoomiye dhalinyaro cusub oo ay degmadu yeelato wiilkan aadka u ilaalsha isfahanka jeebabka iyo danaha ku xindaaban ilaalsiga kursigan uu waqtiga dheer ku fadhiyo ayaa durbaba qoray magacaabis gudoomiye dhalinyaro cusub waxaana isfahamka isaga iyo kusimaha gudoomiyaha degmada ahna gudoomiye ku xigeenka amniga ku muujinayo in uusan ku saxiixneen warqadii hore ee xilka qaadista midan magacaabistana uu isaga ku saxiixan yahay taas oo xadgudub ku ah shaqadiisa maxamed xasan wuxuu bilaabay in uu lacag baad ah ka qaado dadka deegaanka ee guryahooda hortiisa biraha shabaqa ku xirtay taas oo dadka deegaanka ku dhiirigelisay in ay jidadka ku soo wada sikadaan jidadkiina noqdaan kuwo cariiri ah oo aysan gawaarida isku dhaafi karin ciddii dhisato iyadoon lacag bixin wuxuu amar ku bixinayaa in laga jajabiyo oo la soo xiro gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada waa Maryan Cabdullaahi waxay ka mid tahay qurba joogta xilalka u soo raadsaday dalkan waxa ay degan tahay degmada Dharkeeley ee gobolka Banaadir suuqa kaliya ee dakhliga uga soo xareeya degmada Shibis ee Maanabolio ayaa ku dhow in uu xirmo waxa si yaraanayo dadkii ku ganacsan jiray suuqan
sababo kalsooni darro iyo mid amni xumo darteed oo soo wajahday wuxuuna suuqa hoos uga dhacay halkii uu joogay 10 sano ka hor halkii ay ahayd inuu horumar sameeyo waxaa muddo fog xiran jidka isku xiro isgoyska Maanabolyo iyo tabeelaha jaceylka oo ay biyo fadhiyaan ma jira maamul isku howlay furida jidkaas muhiimka u ah suuqa iyo isku socodka dadka waxaa sidoo kale dhagaxaan iyo carro lagu xiray jidcadayaashii ay mari jireen gawaarida si ay uga wareegaan biyo degan waxaa burbursan wadada kaliya ee degmada Shibis gaarka u leedahay oo ah midda nasiib buundo jidadka degmada ma lahan leerarka cadceedda ku shaqeeya oo waa mugdi xilliga habeenkii ah nadaafadda haba sheegin oo qashinka ayaa dhex eegaaga walow ay jiraan shirkado gaar loo leeyahay oo guryaha ka qaada qashinka bishiiba mar dadka deegaanka ayayna ka aruursadaan $4 waxaa heshiis hoose kula jiro kusimaha gudoomiyaha degmada hooyooyinka nadaafadda degmada ayaa ku caajisay shaqada nadaafadda mushaar la'aan darteed waxa ay qaadan jireen oo kaliya kaararka raashinka oo sanadkiiba mar la helo mararka qaarna waxaa afka u dhigto Maxamed Xasan garoonka fuustalka ee degmada ayaa la kireeyaa galabkii waxaa isbuucii ama toddobaadkii ku ciyaara 7 koox oo bil walba kooxdiiba laga qaado $30 wadarta lacagta bishii ka soo xarato garoonkan ayaa ah $210 halka sanadkii ay noqonayso $2520 waxaa qaato gudoomiyaha sportska ee degmada taliyaha saldhigga booliiska degmada waa kabtan macallin aadan oo hore u ahaa taliyaha nabad sugidda degmada wuxuu ka mid yahay tiro taliyayaal booliis degmo oo laga safay darajo aysan tababar shaqo iyo khibrad midna ku mutaysan wuxuu degan yahay degmada uu mas'uulka ka yahay sugidda amnigeeda taliye ku-xigeenka booliiska degmada waa Sheekh Nuur Cabdullaahi Salaad wuxuu booliiska kaga yimid militariga wuxuu degan yahay degmada Shibis amniga degmada ayaa ah mid aan wanaagsaneyn labada waaxood ee kala ah Xalane iyo Calasow Dheere xilliga habeenkii ah waxaa guryaha loogu dhacaa dadka shacabka ah waxaana laga qaataa telefoonada gacanta iyo wixii kale ee fudud ma jirto cid wax ka qabatay maamulka degmada iyo taliska booliiska degmada ayaa xoogga amniga isugu geeyay waaxaha Axmed Gurey iyo Saqaawudiin oo ay iyagu degan yihiin waxaa sidoo kale ku yaala xarunta nabad sugidda ee Habar Qadiijo iyo xarunta golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo aad loo ilaalisho amnigooda taas oo keentay in degmadii ay laba u qaybsanto qayb dadka lagu furto oo lagu dhaco iyo qayb nabad lagu seexdo xarumo waaxeedada Calasow Dheere iyo Xalane oo aan wax shaqo ah lagu qaban ayaa isku bedelay meelo lagu isticmaalo maandooriyaha sida qaadka xashiishka iyo shiishada darawalada kaxeeya mooto bajaajta iyo gawaarida xilliga dambe ee habeenkii qaado hilibka ayaa dhibaato ba'an ku qaba askarta fadhiso baraha kontarool ee Sanca iyo 4 darjiino waa 2 kontarool ee kaliya laga celsho bajaajta Muqdisho go'aanka sii deynta iyo celinta waxay ka timaadaa askarta fadhiso taas oo aan ahayn sharci kuna muujinayso in aysan shaqadooda sidii la rabay uga gudan taliska booliiska ee degmada Shibis waxaa isugu darsoomay gudoomiye la'aan amni xumo nadaafad la'aan mugdi habeenkii ah jidadkii oo ka xiran canshuurtii oo ay bixiyaan dayactirka iyo dhismaha guryahooda oo aysan u madax bannaaneen hal MCH oo 4 waaxood ka dhaxeeyo gudoomiye ku-xigeen aan dhicin oo aysan naxariis ku haysan qoondadii shaqo sida tallaan iyo wacyigelin ee gobolka uga timaada degmada oo laga musuqo iyo suuqa kaliya ee degmadu leedahay oo qarka u saaran in uu xirmo sabab la xiriirta jidkii oo ay biyo fadhiyaan maamulka degmada oo ceel ku riday kalsoonidii ganacsatada iyo amnigii oo ah mid aan la isku haleyn karin Maxamuud Alxaaji barnaamijka dabagalka degmooyinka